kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii qubanaha maanta. barnaamijkeenna qubanaha maanta qodobada aad ku daawan doontaan in idinku haynana waxaa ka mid ah jasiiradda Malta oo ogolaatay in dekedeeda uu ku soo xidho markab sida muhaajiriin ay Soomaali ku jirto oo badda muddo 4 cisho ku xannibnaa. nin baabuur ku jiirsiiyay dad bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka dalka Britain ee magaalada London. Minnesota oo ay maanta ka dhacayaan doorashooyinka isreebreebka iyadoo doorashooyinkaasina ay ka mid yihiin dadka ku tartamaya musharaxiin Soomaaliya. ciyaarihii iyo weliba qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka qubanaha maanta. balse aan ku bilownay dalka Talyaaniga ugu yaraan 22 qof ayaa dhintay kadib markii ay burburtay isla markaana ay soo duntay buundo ay dul marayeen baabuur aad u tiro badan. dabaylo iyo duufaano xooggan ayaa sababay burburka buundadan oo ku taala magaalada dekedda ah ee Genoa. goobjoogayaal ayaa sheegaya in buundadu markii ay burburtay ay dul marayeen 9 gaari. shaqaalaha gurmadka ayaa dadka ka raadinaya burburka buundadan oo ay dul marto waddo weyn oo isku xidha Talyaaniga iyo koonfurta dalka Faransiiska. jasiiradda Malta ayaa sheegtay inay ogolaatay in dekedeeda uu ku soo xidho markab ah kuwa wax badbaadiya oo sida 141 muhaajiriin ah oo ay Soomaali ku jirto kaasi oo badda ku xannibnaa isla markaana dul heehaabayay muddo 4 cisho ah. dowladda Malta ayaa sheegtay in 141 qof ee muhaajiriinta ah ee markabka saaran loo kala qaybin doono dalalka Faransiiska, Jarmalka, Luxembourg, Portugal iyo weliba Spain. waxaana dowladda Malta intaasi raacisay in 114 kale oo muhaajiriin ah oo badda laga soo badbaadiyay dalkeeda shalay la keenay, kuwaas oo 60 ka mid ah loo kala qaybinayo wadamada Yurub. booliiska magaalada London ayaa sheegay in 3 qof ay dhaawacmeen kadib markii nin baabuur watay uu jiirsiiyay dad marayay bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka waddanka Britain ee magaalada London. ciidanka booliiska ayaa xidhay ninkan waday gaarigan oo looga shakisan yahay inuu ahaa fal argagixiso, waxaana ay sheegeen in cid kale aanay gaariga saarnayn isla markaana aan laga helin wax huba, iyagoo da'diisana ku sheegay inuu ninkaasi ku jiro da'da 20-yaha. Neil Basu oo ah ku-xigeenka taliyaha booliiska ee magaalada London ayaa warfidyeenada u sheegay isla markaana yidhi hubaal waxay u muuqataa inuu yahay fal ula kaca, balse waxaa ku dhaliyay ma sheegi karno. madaxweyne Donald Trump oo ka falceliyay weerarkan ayaa qoraal uu soo dhigay boggiisa Twitterka ku yidhi weerar kale oo argagixisa ayaa London ka dhacay, xoolahan way waalan yihiin, waxaana waajib ah in loola tacaalo si adag oo xooggan. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku hanjabay in waddankiisa uu qaadici doono alaabaha elektarooniga ah ee lagu sameeyo waddanka Mareykanka. tallaabadan ayaa madaxweynaha Turkigu ku tilmaamay mid jawaab u ah dagaal dhinaca dhaqaalaha uu sheegay in Mareykanku uu ku soo qaaday dalkiisa. khilaafka dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya labada dal ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Turkiga taasoo hoos u dhigtay sarifka lacagta liirada ee dalkaasi Turkiga. madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in telefoonka gacanta ee iPhone-ka ee uu Mareykanku soo saaro looga maarmi karo noocyada kale ay ka midka yihiin Samsung iyo Vestel. Erdogan ayaa ugu baaqay dadweynaha Turkiga inay dollarka ay haystaan ay u bedeshaan lacagta liirada si looga maarmo dollarka. lacagta liirada ayaa hoos u dhacday 40% sanadkan, iyadoo maalintii Jimcihiina mar kale ay hoos u dhacday 16%, iyadoo sidoo kalena Isniintii shalay ay hoos u dhacday 7%. laakiin maanta oo Salaasa ayaa lacagtaasi liiradu ay xasiloonayd iyadoo kor u kacday 5%. bangiga dhexe Turkiga ayaa ballan qaaday inuu qaadayo tallaabo kasta oo lama huraan ah oo lagu xasilinayo dhaqaalaha Turkiga si loo hubiyo in bangiyada ay haystaan dhammaan lacagaha ay u baahan yihiin. gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka waxaa ka dhacaya doorashada isreebreebka oo ay xisbiyadu dhexdooda iska soo saarayaan musharaxiintii uga qaybgeli lahaa doorashada bisha Noofambar ka dhici doonta Mareykanka, waxaana dadka doorashadaasi ku tartamaya ka mid ah Soomaali, iyaga oo u tartamaya kuraasta aqalka Koongareeska Mareykanka iyo weliba kuraasta golaha Koongareeska ee gobolkaasi. wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaa si dhow la socday doorashadaasi isla markaana faahfaahinta inoo haya. haye Maxamuud. cabdixakiin maxamuud shirwacaad baad u mahadsan tahay. gobolka Minnesota maanta waxaa ka jirta doorashada waddanka Mareykanka ee loo yaqaano primary-ga ama doorashada isreebreebka,
oo xisbiyadu ay ku soo saarayaan qofka markaasi ay doonayaan inuu u matalo doorashada guud ee waddanka Maraykanka oo bisha November dhici doonta. Gobolka Minnesota ilaa iyo dhowr kursi ayaa dadka Soomaalida ay ku tartamayaan golaha Congress-ka ee dalkan Maraykanka oo Ilhaan Cumar iyo nin la yiraahdo Jamaal Cabdullaahi ay ku tartamayaan. Waa kursi uu baneeyay Keith Ellison. sidoo kale kuraasta ay Soomaalidu u tartamayaan waxaa ka mid ah gobolka Minnesota golihiisa Congress-ka oo 2 kursi oo ka mid ah ay 4 qof oo Soomaali u tartamayaan. kursi ka mid waa kursigii ay banaysay Ilhaan Cumar. waxaa u tartamaya kursigaasi Maxamuud Nuur oo Ilhaan doorashadii hore ay kaga adkaatay isaga. sidoo kale kursi kale ayaa jira oo ay ku tartamayaan 3 qof oo Soomaali ah. 3daasi qof ayaa kala ah Hodan Xasan, Ismaan Cali Axmed iyo Cumar Faatax oo dhammaantood hal kursi ku tartamaya. haddaba waxaa suuragal ah in caawa doorashada gobolka Minnesota marka ay soo xiranto oo goobaha codbixintu ay soo xirmaan 8 fiidnimo in 3 qof oo Soomaaliyihi ay 3 kursi ku kala guuleystaan golaha Congress-ka dalka Maraykanka oo Ilhaan Cumar ay haysato fursad inay ku guuleysato iyo 2 kursi oo gobolka Minnesota oo 4 qof oo Soomaaliyihi ay u haystaan fursad inay ku soo baxaan. haddaba dadka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa iyagu caawa doorashadan aad uga dhursugaya. weliba waxaa aad iyo aad isha loogu hayaa Ilhaan Cumar oo xisbiga dimuqraadigu ay codka siiyeen isla markaasina ay iyada hadda taageersan yihiin dhowr qof oo kalena ay la tartamayaan. haddii markaasi Ilhaan ay guuleysato iyadoo xisbiga dimuqraadiga taageero ka haysata isla markaasina dadkuna ay u codeeyaan waxay noqon doontaa habeen taariikhi ah oo qofkii ugu horeeyay Soomaali ah oo muslina oo haddana Afrikaan ahi uu ku guuleysto inuu ka mid noqdo golaha sharci dejinta ee waddankan Maraykanka. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Maxamuud Mascade. ugu dambeyntiina Shankaroon Diini Cilmi oo gudoomiye ka ah urur lagu magacaabo Geda Reform Organization isla markaana ku nool magaalada Coventry ee dalka Britain ayaa sheegtay in ururkoodu uu gacan ka geysanayaan dhismaha jidka gobolka Gedo. wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo magaaladaasi dhawaan booqday ayaanay warantay. waa mahadsantahay. ugu horreyn waxaan jecelahay bal inaad si guud uga hadasho xilliga aad bilowdeen ururkan iyo ujeedooyinka aad u asaasteen. actually sida guud haddaan ka hadlo waxaan doonaynaa in aan wadooyinka gobolka Gedo aan dhisno oo aan bulshada ku nool gobolkaas oo aad u baaba'san aan garab siino dhan kasta ah. wadooyinka oo kaliya xataa ma aha, waa inaan noloshooda waxa u fududeynayo oo dhan aan maaragtay aan siino annagoo la kaashanayna shacabka Soomaaliyeed oo aad dad u naxariis badan ah oo dad isku tiirsan ah oo dad isku nool ah oo mid kale u caawiyo. maadaama annaga dadna caawiyo aan weynay oo gobolka Gedo madax haddii aan leenahay iyo haddaan cid kasta leenahayba wax gobolkii dib u fiiriyo laleeyahay yaan anigu u kacay. bulshadayda Ingiriiska deganna oo adiguba aad ka mid tihiin safar dheer baad ii soo gasheen in aad i waraysataan ood i caawisaan ood maaragtay aad donation samaysaan adigu laftigiinna. horey mashaariic u fuliseen miyaa jirta oo aad uga qayb qaadateen dhismaha maadaama aad sheegtay inaad doonaysaan inaad gacan ka geysataan gaar ahaan wadooyinka gobolka Gedo? walaal waxaan last May ayaan bilownay sanadkii 2017. wax ilaa hadda aad fuliseen miyaa jira mashaariic mise waa on bilow? may way jirtaa waxaan fulinay magaalada Beledxaawo dhexdeeda oo maaragtay biyo fariis lahayd marka roobka uu doo aan la mari jirin ayaan hagaajinay. magaaladina waxaan ka soo saarnay shantalaalkeedii meel aad u wanaagsan oo waliba space leh oo nadiif aan ka samaynay. hadda maxaa idii qorshaysan mase is leedahay kaalmo idinku filan waad heshaan oo aad uga qayb qaadan kartaan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha? wallaahi hadda lacagta aan ku bilownay wadadaas aan ku samaynayno wax yar ma ogi. inta kale magaalada Beledxaawo laga aruuriyay dadka baan encourage garaynay oo dhiirigelinay oo meesha wax ma yaala adika xataa iska aruuriya. annaga wax yaro ama maaragtay ay ku bilaabeen baan u dirnay. inta kale ayaga isxil qaamay. haddana dadaalkii iyo mid ka sii saa'idba waa wadnaa. waxaan adduun weynaha ka codsanaynaa in ay nagu caawiyaan oo na soo garab istaagaan si wadooyinkaas ay loo hagaajin lahaa. haatana daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya wariyahayaga Nuur Bukhaari. haddii aan ku horeyno ururka maamula kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa uga digay dalka Nigeria in laga joojin doono ka qaybgalka ciyaaraha caalamiga ah haddii xiriirka kubadda cagta dalkaasi laga joojin waayo faragelin siyaasadeed oo lagu hayo sida ay FIFA sheegtay.
qoraal ka soo baxay guddiga sare ee fifa ayaa lagu sheegay in guddiga uu aqoonsan yahay keliya guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta nigeria ee la doortay sanadkii 2014 ninka lagu magacaabo Amaju Melvin Pinnick. fifa waxay sheegtay inay ciyaaraha caalamiga ah ka joojin doonto nigeria haddii aanan shaqadiisa loo ogolaan guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta laga bilaabo isniinta soo socota oo ku beegan 20 bishan Agost. xiriirka kubadda cagta nigeria ayaa waxaa ka jira isqabqabsi ku salaysan hoggaanka xiriirka. xiriirka kubadda cagta fifa ayaa sheegay in ganaaxan uusan saameyn doonin kooxda gabdhaha ee xulka qaranka kubadda cagta nigeria ee hadda ka qaybgelaya ciyaaraha adduunka ee dumarka da'doodu ka hooseeya 20 sano ee ka soconaya dalka Faransiiska. wararka suuqa kala iibsiga ee qaaradda Yurub haddii aan aadnana kooxda AC Milan ee dalka Talyaaniga ayaa la soo wareegtay laacibka khadka dhexe ee kooxda Chelsea Timo Bakayoko kadib markii uu maanta maray tijaabada caafimaadka. Milan ayaa ciyaaryahankan 23 jirka ah ku heshay heshiis amaah ah iyada oo Chelsea siisay 5 milyan oo euro. sanadka dambe ayay dhiibi doontaa 35 milyan oo euro oo kale si Bakayoko uu u noqdo laacib ay iyadu leedahay. dhinaca kalena kooxda ay Milan mataanaha yihiin ee Inter ayaa naadiga Monaco ee dalka Faransiiska ama hal sano ah uga soo qaadatay laacibka garabka ka ciyaara ee lagu magacaabo Keita Balde Diaw. Keita ayaa sanad ka hor kaga soo biiray kooxda Monaco naadiga Lazio ee dalka Talyaaniga waxaana uu xilli ciyaareedkii la soo dhaafay uu u ciyaaray Monaco 23 kulan isaga oo dhaliyay 8 gool. ugu dambeyntiina halyeyga kubadda cagta dalka Brazil Ronaldo ayaa laga soo saaray isbitaalka kadib markii uu jimcihii haleelay xanuunka oof-wareenka. laacibkii hore ee reer Brazil ayaa jimcihii isbitaal ku yaala jasiiradda loo dalxiiska tago ee Ibiza ee dalka Spain loola cararay kadib markii uu neefsan kari waayey sida ay sheegeen dhaqaatiirta. Ronaldo oo lagu tiriyo weeraryahankii ugu wanaagsanaa ee soo mara dunida kubadda cagta ayaa sanadka 2011 ka fariistay ciyaaraha laakiin muddadii uu ku shaqaysanayay xirfadda kubadda cagta waxa uu u soo ciyaaray kooxo caan ah oo ka dhisan Yurub oo ay ka mid yihiin PSV Eindhoven, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan iyo sidoo kale kooxaha reer Brazil ee Corinthians iyo Cruzeiro. xulka Brazil ayuu kula guuleystay 2 jeer koobka adduunka sanadihii 1994 iyo 2002. 2 jeer ayaa loo boqoray laacibka ugu wanaagsan kubadda cagta adduunka isagoo uu ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or sanadihii 1997 iyo 2002. daawadayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa. guud ahaanba daawadayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeena qubanaha maanta tan iyo intaynu barnaamijkan mid lamid ay isugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.